Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada channelkeeni production waad kaga barateen casharo ku saabsan teknolojiyada iyo designing. Waxaan la socday koorsadani Photoshop. Casharkan waa casharkii labaad. waxaan ku baran doonaa hore kugu ballan qaaday qaybta toolska ayaan insha Allah bilaabi doonaa. Maanta waxaan qaadan doonaa labada tool ugu horeysa sida la yiraahdo move tool iyo mark tool. Labadaasaan qaadan doonaa insha Allah maanta. Marka move toolka hadaan ku bilaawno aan ogaan waxyaabo uu qabto waa inaan sawir soo gelinaa. Marka soo galaynaa laba sawir aan soo galaynaa saan ogaan waxyaabo uu qabto. Move tool ma yeesho ka dareemi karto waa move wax la qaadayo oo meel la qaadayo meel kale la geenayo. Marka hadda kan oo kaleeto move tool kan isticmaalaya waan qaadi karaa halkaan aan keeni karaa soo jeedid waan keen. Marka waxa la yiraahdaa move tool kan aan qaadaa meel kale aan geeyo bas inaad doorato kadib aad qaado. Marka waa only key waxa waaye waa move tool waa meel ka soo qaad meel kale geey. Marka waxa filan programka ma fahamtay sidoo kale waxyaabo isticmaali kartaa halka sawir kale waa isticmaali kartid kumanaan sawir isu keeni kartaa. Markii sawir la isu keenayo ama la nashqadeynayo shay move toolku waa laga maarmaan waa meel ay laga maarmaan waayo waxaad u baahan tahay intaas sawir ama intaas waxyaabood inaad hal meel isugu keento. Marka waxaad isticmaalaysaa move tool. Marka waxaan fahmayaa ama aan dareemayaa inaad fahantahay move. Okay wuxuu leeyahay shortcut uu leeyahay sidoo kale aan ka iloobin oo ah V. Hadda toolka la select garayo aan V iraahdo isla marka hore waxa iga soo qabanaya move tool iga soo qabanaya. Okay aanu tagna bal waxa la yiraahdo Marcus selection tool. Marcus selection tool afar qayb u qaybsamaya. Waxa la yiraahdaa rectangular Marcus tool, elliptical iyo waliba single row iyo single column. Marka aan fiirnaba tan ogaano waa inaan soo gelinaa sawir ay ku jiraan sawirro caadi ah. Marka kan isticmaalina marka kan isticmaalno ku waxaan isticmaalnaa rectangularka. Horta intaan ku sharaxin qaybtan aan ku sharaxo tools barkan Marcus selection tool barkisan ku sharaxo wuxuu leeyahay runtii hadaan sameeyo selection oo selectionka waa circle way. Marka dan sawirkaas doorto marka sawirkaas doorto sawirkan option badan oo sameey kara aan ka bilaabo geeska waxa geeska ugu jeeda hadda noo saaran tahay waa add selection key. Marka waa selection key marka waxaan leenahay add selection mid kale aan ku sii dareyn. Marka waxaan leeyahay sawirkan full ka dhig oo add selection ujeedin oo ku sii daraya. Okay hadaan dhaho tabtara oo ah ka jaraan la intaan marka qaybta kale soo bandhigaya waxaa jira ku dar waxa la yiraahdo insert. Marka uu dooranayo kaliya kii hore tiraya doorashada cusub ay raacay waxaa jira waxa la yiraahdo caadi u doorana sawirka face kan caadi u doorahayna saan u aragno waxyaabaha aan ka hadlayno okay marka wajigiisan waadino hadda adiga featherkaas adiga 0 ku yahay aan filayo featherkaas waad ka dhigtaa content ka dhig ama hadarta xabaha bedel iska daa xabaha bedel dartiid marka arkaato waa dhig kartaa size fixed ratio laakiin normal ku daa waayo normal ku fiican. Marka sidan samayso refine edge refine edge halkaan uu keenaya marka waxyaabaha shaka bedelaysa smooth ka bedelaysa feather ko kaleeto waxaan u baahanahay contrast ko kaleeto sidoo kaleeto shiftiga aad u baahan tahay inaad sameeydo. Marka ay yaray halkaan tigsaar meesha hoose output kan ka dooro new layer waxaan doonaynaa sawirkan edit gaar inaan noqdo new layer halka kale soo muuqan doonayna. Marka waan faahfaahin filan ratio gana waa kaasaha waa faahfaahsantahay. Okay marka hadda okay aad leedahay marka wuxuu ku noqonayaa new layer oo kii hore oo ku baax banaananaya. Marka waxaan filayaa inaad isna fahantay waxa la yiraahdaa Marcus selection tool. Wuxuu leeyahay rectangular soo jeedin afar gees oo shortcut yahay elliptical dan leeyahay oo circle ka ah single row leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay column. Marka waxaan filayaa inaad fahanteen labadan tool aadna ka faa'iideysateen. Fadlan haddaad ku cusubtahay channelkeena aad doonaysid inaad hesho casharo badan oo ku saabsan designinka iyo waliba teknolojiyada ku soo bir channelkeena YouTube-ka Ahsan Production oo subscribe garay sidoo kale page-keena like tar sidoo kale muuqaalkan aad hadda daawanayso si share garay si asxaabta u daawadaan. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaal waa Ahsan Production iyo waliba cashar kale la mid ah casharadan intaan kulmayna casharkeena saddexaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.